السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran channelkeena Dr. Ball. Waan ka xunnahay maalmihii aan ka maqnayn waxaan kaga maqnayn cilado farsamo oo jira awadeed. Alxamdulillah maanta ay suurto gashay mar kale dib isugu soo laabano. Waxaan insha Allah guda gali doonaa casharadeenii inoo socday ee inflammation ku dhaca dheef mareenka. Waxaan horey uga soo hadalnay 3 cashir. midka koowaad wuxuu ahaa cudurrada ku dhaca afka oo ulcerative-ka ama mouth ulcers loo yaqaano. sidoo kale waxaan ka soo hadalnay cudurrada ku dhaca iyagana dhuunta oo esophagus-kaas ama inflammation of the esophagus-ka ahaa. waxaan iyadana ka soo hadalnay cudurrada ku dhaca caloosha oo gastritis ama gastriga ama gaaska waxay Soomaalida u taqaan ah. maanta insha Allah waxaan ka hadlaynaa inflammatory bowel disease ama cudurrada loo yaqaano IBD-ga. IBD-ga waa inflammation ku dhaca mindhicirada. wuxuu u qaybsamaa laba qaybood. qayb Crohn disease la dhaho iyo qayb ulcerative colitis la dhaho. Crohn disease-ka markaan fiirino wuxuu ku dhacaa maxaan ku raadaa small intestines-ka. wuxuuna sameeyaa go'go ama patch meel yar oo saas u go'go'an. meeshii uu ku dhacana wuxuu gaaraa ilaa iyo qaybta dambe mindhicirka layerkiisa dambe ayuu gaaraa. taasoo sababaysa marka in dhiig badan qofka hadhow uu saxroodo. halka maxaan ku raahdaa ulcerative colitis isaguna uu ku dhaco large intestine-ka iyo rectum-ka. wuxuu kasoo bilowdaa marka isaga rectum-ka kasoo bilowdaa ama saxaro keedinta ayuu kasoo bilowdaa. wuxuu soo gaaraa ilaa iyo large intestine-ka ayuu soo gaaraa oo large disease ku dhacaa. marka isaga ma sameeyo go'go ama patch sida Crohn disease-ka ma sameeyo, laakiin wuxuu sameeyaa continuous inflammation ama caabuq xiriiran ayuu sameeyaa. waxaana meeshaas ka dhalanaysa marka in uusan gudaha u gudbin sida Crohn disease-ka oo kale uusan gudaha u gudbin. laakiin waxay iskaga mid yihiin maxaan ku raahdaa in inflammation-kaasi uu ku dhaco isagana small intestine-ka, large intestine-ka ilaa iyo rectum-ka ku dhaco caafa. waxaa kaloo iyadana jirta marka maxaa keena ama maxaa sababa IBD-ga labada cudur ee loo yaqaano Crohn disease-ka iyo ulcerative colitis-ka maxaa sababa? waxaa sababa laba qaybood. qayb waa immune oo maaragtay jirka kaca. sababtuna waxay tahay in bacteria soo gashay ama in maxaan ku raahdaa virus uu soo galo ama viral. waxaa taas sababaysa marka in inflammation-kaasi uu sababo ugu dambeyn inuu isu bedelo ulcerative colitis ama Crohn disease oo isku duub loo yaqaano inflammatory bowel disease. marka kadib waxaa kaloo iyadana dhalin kara IBD-ga waa genetic related. waa qof tusaale oo kale family-ka wuxuu qabaa cudur Crohn disease ama ulcerative colitis ama labada buu qabaa oo IBD ayuu qabaa. waxaa meeshaas ka ragtibaysa marka in qofkaasi dadka uu dhalay iyo maaragtay wixii isaga la xiriiray ka soo bixi karaan ama laga heli karo cudurkan IBD-ga lala heli karo. calaamadaha lagu garto marka IBD-ga haddaan fiirino waxay tahay kow qofka inuu la imaan doono shuban ayuu la imaan doonaa. labo mararka qaar dhiig ayuu maaragtay saxaradii soo raacin doonaa. caloosha ama bagga oo aad u xanuuni doonto oo xanuun badan uu ka dareemi doono. fatigue ama daal iyo tabardari fara badan oo qofku dareemi doono. waxyaabahaas oo dhan ayaa maaragtay qofku ku imaan doona iyo weight loss iyo qofka inuu garaamkii waayo. waayo shubankii wuxuu keeni doonaa inuu garaamka qofku waayo oo maaragtay isdhimo jirkiisii. maxaa lagu ogaadaa marka? waxaa lagu ogaadaa MRI iyo CT scan iyo radiographic ayaa lagu ogaadaa. ku baari karnaa markii imaging-ka xaggiisa la dhaho. marka kalena waxaan ku ogaan karnaa stool examination inaan qaadno oo maaragta aan qaybtaas aan ku jeegaran. sidoo kale maxaa lagu daweyn karaa marka? daawadiisa maxay noqon kartaa? waxaa kaloo lagu daaweyn karaa dawooyinkan loo yaqaano 5 aminosalicylic acids-ka. waxaa kaloo iyadana lagu daaweyn karaa corticosteroids-ka. waxaa kaloo iyadana lagu daaweyn karaa biological test ayaa lagu daaweyn karaa ama biologist ayaa lagu daaweyn karaa. haddii marka chemical ama dawo xal u noqon weyso maxaa xala? waxaa xal ah in operation loo sameeyo oo surgery loo sameeyo. qofkaas iyadoo la saari doono ama la jari doono area inflammation-ka keenta ee dawada xalka looga waayo ama maarada looga waayo la jari doono insha Allah. marka cashirkeena koowaad ee inflammatory bowel disease halkaas ayaan ku joojinaynaa. insha Allah qaybaha dambana insha Allah waxaan uga hadli doonaa cudurada ku xiga inflammatory bowel disease-ka cudurada ku xiga. qayb kaloo idin insha Allah usbuucan waxaa bilaaban doonta IT-ga ama information technology-ka isaguna bilaaban doono. la socod wanaagsan waana mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.